bartamaha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi waxaa hadda ka hirgalay dhisme astaan iyo calaamad u ah hamiga iyo horumarka bulshada Soomaalida. Waa bilowga nolol cusub oo casri ah. Ku soo dhawow Damal Heights oo ay ku hirgelinayso Dahabshiil Real Estate. Damal Heights waa dhisme ka kooban 20 dabaq oo si casri ah la jaanqaadaya dhismayaasha degsiimada ee dunida horumartay. Looga dhisay bartamaha xaafadda Islii. Goob aad ka heli karto wax kasta oo aad magaalo uga baahnayd, sida masaajidkii ugu weynaa magaalada ee 7 Street oo ku yaala ka soo horjeedka dhismahan. Goobihii waxbarashada, xarumihii ganacsiga, hoteeladii iyo makhaayadihii cuntada. Waana aag ammaan ah oo nabadgelyadeeda si weyn loo ilaaliyay, kuna habboon nasasho iyo degsiimo. Dabaq kasta oo ka mid ah dhismaha weyn ee Damal Heights waxa uu ka kooban yahay 2 guri oo min 3 qol oo jiif ah, mid walbaana uu ku fadhiyo dhul cabirkiisu yahay 138 mitir oo iskuweer. Qiimahooduna waa $80,000 oo keliya. Sidoo kale hal guri oo 2 qol oo jiif ah oo isna ku fadhiya dhul cabirkiisu yahay 91 mitir oo iskuweer. Isna qiimuhu waa $60,000 oo keliya. Iyo waliba hal guri oo ka kooban 1 qol oo jiif ah. Dhammaantoodna waa guryo si heer sare loo qalabeeyay loona dhisay, oo aad ka heli karto wax kasta oo aad suuq uga baahnayd, sida makhaayadihii cuntada, tukaamadii aad ka adeegan lahayd, iyo kuwii caafimaadka. Waxaa dheer weliba qaybaha kala duwan ee Dahabshiil Group. Waqtigan in ka badan 50% guryaha iyo dukaamada dhismahan Damal Heights waa la iibsaday, halka inta kalena uu hadda socdo iibkoodu. Waad ka mid noqon kartaa mulkiilayaashooda ama kiraystayaasha. Dhismuhu si joogto ah ayaa u socda, waxaana bisha Sebtembar ee sanadkan curanaya 2026 si rasmi ah loogu wareejin doonaa mulkiilayaasha cusub iyo kuwii horeba guryaha iyo ganacsiyada Damal Heights. Dahabshiil Group waxay u hirgelisay Damal Heights mid ka badan dhisme keliya. Waa taageero lagu horumarinayo bulsho kobcaysa iyo sii wadida dhaxal lagu kalsoonaan karo oo qarniyo jira. Ka mid noqo mulkiilayaasha Damal Heights ama kiraystayaasha deegaan nabdoon iyo degsiimo casri ah. Wixii macluumaad dheeraadana nagala soo xidhiidh telefoonada iyo informationka shaashadda idinka muuqda.